بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bishii labaad 2024 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabid madaxweynuhu wuxuu yiri markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markii aan tixgeliyay ahmiyadda ay wasaaradaha hoos ku xusani u leeyihiin oo adeegidda dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha qaranka markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay sida hoos ku socota in laga bilaabo taariikhda maanta ay xilalkan u magacaabo mas'uuliyiinta hoos ku xisan mudane Cabdalla Maxamed Carab Sandheere wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 2 mudane Xasan Axmed Ducaali Macallin wasiirka wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka ee jamhuuriyadda Soomaaliland 3 mudane Yunis Axmed Yunis Maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland 4 mudane Cabdilaahi Xasan Aadan Cawaale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 5 mudane Cabdiraxmaan Daahir Aadan Bakaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland 6 Dr. Xuseen Bashiir Xirsi Wahan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland 7 mudane Xuseen Axmed Caydiid Warsame wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda Soomaaliland 8 mudane Khadar Xuseen Cabdi Looge wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland 9 mudane Cali Jaamac Faarax Buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda Soomaaliland 10 mudane Maxamed Yuusuf Cali Axmed Ilka Case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda Soomaaliland 11 injineer Axmed Jaamac Barre Roble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda Soomaaliland 11 injineer Axmed Jaamac Barre Roble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland 12 marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi Madar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland 13 mudane Cismaan Ibraahim Nuur Afgaab wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland 14 Professor Ismaaciil Yuusuf Ducaale Guuleed wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland 15 mudane Abubakar Cabdiraxmaan Good Wacays wasiirka wasaaradda biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 16 marwo Milgo Maxamed Cilmi Sambalooshe wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda Soomaaliland 17 mudane Maxamuud Ciga Yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkii 17aad 18 mudane Fuaad Axmed Nuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland 19 mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland 20 mudane Cabdilaahi Cismaan Jaamac Geeljire wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland 21 mudane Axmed Awdaayir Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland 22 mudane Jamaal Maxamed Jaamac Axmed wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland 23 mudane Saleebaan Ducaale Xaaji Jaamac wasiirka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee jamhuuriyadda Soomaaliland 24 mudane Axmed Maxamed Faarax Coofle
wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland 25 mudane Cumar Shacayb Maxamed Cabsiye wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga 26 Sheekh Cabdilaahi Daahir Jaamac Baashi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta 27 mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur Furre wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland 28 mudane Siciid Maxamed Buraale Caraale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi waxay ahaayeen wasiiradii waa 28 nambarka 29 oo wasiiru dowlayaasha mudane Maxamed Yuusuf Ibraahim Faacuul wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska 30 mudane Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland amniga gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 31 mudane Ismaaciil Mawlid Cabdilaahi Xasan wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 32 Mukhtaar Xaaji Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda saddexdaas waa wasiiru dowlayaal nambarka 32aad bay wasiir ku-xigeenadu ka bilaabmayaan mudane Mukhtaar Xaaji Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa wasiir ku-xigeenadii baan imika galay nambarka 33aad mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland 34 mudane Muuse Askar Guuleed Jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta 35 Marwo Samsam Maxamed Saalax Yacniile wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland 36 mudane Jamaal Jaamac Xaamud Dhunkaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta 37 mudane Cali Axmed Cabdi Cantar wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga 38 mudane Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha 39 mudane Maxamed Muuse Xaaji Cabdi Galeyd wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska 40 mudane Sharmaarke Cabdi Muuse Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda 41 mudane Cabdiraxmaan Shide Bile Dharaar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada 42 mudane Yuusuf Kayse Cabdilaahi Aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada 43 Dr. Maxamed Ow Daahir Ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada 44 injineer Maxamed Cilmi Xuseen Huuno wasiir ku-xigeenka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 45 mudane Jawhar Siciid Warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska jamhuuriyadda Soomaaliland 46 injineer Maaliki Cabdi Xasan Xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada 47 mudane Maxamed Muuse Bucul Bookh wasiir ku-xigeenka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka 48 mudane Maxamed Cabdilmaalig Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka jamhuuriyadda Soomaaliland allah mahadle intaas ayay mataqaanaa wasiiradii wasiiru dowlayaashii iyo wasiir ku-xigeenku intaasay ku egyihiin waxaan jecelahay wasiirada ka tirsan xukuumaddii xilka tirisay anagoo ka hadlay afka madaxweynaha ahna afhayeenkii madaxweynaha waxaan la farayaa wasiiradii hore inay ku diyaariyaan xil wareejinta muddo saddex ishaa ay ku wareejiyaan xilka ay qaranka u hayaan kuna wareejiyaan cidda uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu magacaabay aad iyo aad baad u mahadsantihiin